webiga Shabeelle oo runtii dhibaatooyin geystay deegaanada ugu badan ay yihiin Shabeellada dhexe iyo Shabeellada hoose jubbooyinkana sidoo kale hadda sidaas la mid ah uga jiraan marka sida ogtiin dadka Soomaalida waa dad dagaal sokeeye ka soo baxaya wali beerihii iyo xoolihii iyo xirfadihii lagu noolay sidii la rabay uma shaqeeyaan burburkii wali saameyntiisa ka jirta marka howlahan oo kale ay dhacaan ama fatahaadu ay yimaadaan waxay dhibaato gaarsiinayaan dadka danyarta oo awal baa la daalanay wax soo saarku aad u yaraaday kuna saamoobay amniga iyo burburkii gaara dalka marka sida la socotiin madashu bariyahanba waxay la socotay oo si dhow ula socotay saameynta aan fiicnayna oo ku yeelatay biyaha webigu ay ku yeesheen labada gobol ay ugu daran oo gobolka Shabeellada dhexe iyo gobolka Shabeellada hoose gaar ahaan degmada Balcad iyo tuulooyinka la xiriira degmada Afgooy iyo tuulooyinka la xiriira waxyaabahan naloo soo sheegay waxa kamid ah Afgooy oo kale biyuhu inay masaajidka xataa inuu usbuuc xiran yahay marka maadaama ay sidaas tahay dadka Soomaalida waxa looga bartay marka duruuftan oo kale ay timaado in la isgarab istaago oo dadka dhibaatadu gaartay gacan la siiyo gaar ahaan dadka waxaysta madashuna dadaalay wada arintaas looga jawaabayo ama dadka habooriso ama ayadu laftigeedu dadaal dhinaceeda ha muujiso marka waxaan rabnaa inaan uga faa'iideysano fursaddan aan ugu baaqno dawladda ku meel gaar dawladda iyo maamul goboleedyada iyo maxaan ku iraahdaa hay'adaha gargaarka adduunka inay caawiyaan dadkaas garab istaagaan si gaar ah waxaan rabnaa inaan ula hadalno dadka waxaysta Soomaalida Ilaahay wax siiyay maalinta la rabo inay dadkooda garab istaagaan maanta kala waaye marka waxaan leenahay garab istaaga dadka dhinac kale marka laga fiiriyo in marna daadad dadka ay qaadaan marna abaare ay jiraan laftigeeda waa arin maskaxda aan ku hayno u baahan in aad looga fikiro webigan waa khayr Ilaahayna siiyay ma labada webiba aan dhaho laakiin haddana marna waa guraan marna biyo badan ay keenaan dadka qaar waxa laga yaabaa inay isiraahdaan roobka dartiis waa laakiin sida loo xaqiijiyay waxa ugu daran oo saameynta ugu xoogan yeesho waa webiga saameyn waa leeyahay roobku xalay waxa la socotay in magaalada Muqdisho meelo kamid ay dhibaatooyin oo roobku geystay oo guriga soo dumeen marka intii ku dhibaatootadana dhibaato ka soo gaartana Allaha caawiyo muhiimadda aan u soo istaagna waxa waa in loo istaago dadkaas in la caawiyo waana arrin waajib nagu ah oo la rabo inaan ka wada qayb qaadano gaar ahaan dadka Ilaahay oo xoolo siiyay oo maanta awoodi kara inaan waxba laga yareysanin qof la arkaba inta tabartiisa oo kari karo inaan la fududeysanin ka soo qaad maanta adoo u baahan in lagu garab istaago dadka dhibaatadu gaarto waa sidaas oo kale marka haddii aan la dhaqaaqi karin oo dadkii guryahooda ay ka baxaan roobka waxa la socda cudurro kanaaca iyo waxyaabo badan la socda marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed meel ay joogaan baa loo soo gurmado guda iyo dadka dibadda jooga laftigooda waxa laga yaabaa inay wax uun ka qayb qaadan karaan inta la yihiin dawladihii ku howlanaay oo u soo dhaqi jiray wanaaga iyo inay dadka garab siiyaan ayagana anaga uga mahad celinayna wixii hore u sameeyaan haddana waxaan leenahay sidoo kale baahida wali waa taagan tahay waxaan rajaynaynaa inaan gaarno webigaasna inuu biyihiisa noo haayo marka ay bataanna meelo lagu kaydiyo aan sameeyno insha Allah tabaaraka wa taala si fiican looga faa'iideysto dadkaan hadda maalin walba dhibaatadu haysato inay dhibaatada ka baxaan oo ay noqdaan dad ka qayb qaata adduunka wax soo saarkiisa ay ka qayb qaata inay noqdaan rajaynaynaa oo gacantaaga iyo baahida laga baxo laakiin haddana waxaad ogaatiin marka dhibaatadu jirto lagama indha daboola karo waa in mataqaana farta lagu fiiqaa la isgarab istaagaa dalkaana hadda saan ma aha jirana waa ka fiicnaa jiray marka annaga inagu xiranta inaan dadaalno oo aragti fiican oo dalka oo ku horumari karo oo keeni karta in dalkan oo ka baxa dhibaatada inaan ka shaqeyno waxaan aaminsanahay maanta in aragtidaas ay ku weyntaa dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxa muhiimka ana taas waaye oo in laga baxo dhibaatada ah marka aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.